ha u challenge gareeyeen laakiinse magacii awowgan odaygii daaro intii la soo qaato in la dhaho wiil TikTok joogaa farageliyay wiilkaasaa daaro la dagaalaya hawiye daaro isma hayaan ana inay cadeynay hadda wax hawiye daaro isku hayaan oo cad hadaa haysaan noo keena anaga aan ogeyn dagaal hawiye daaro haduu jiro noo keena anaga in la qayb galayna laakiinse kaalay wiil meeshaan jooga isugu tagna daaroodo oo baayay soo kacoy boqor baa la dhahaa xaliima la dhahaa saaduma la dhahaa waxaas waxa arkaaniyahu qof in xayisiin loo sameeyay xayisiin lacag la'aan sameeynaysa joojiya advertisement-iga salaam bismillaahir rahmaanir rahiim aad aye ni horta sicil laba nin iyo ninka maxamed cali iyo sicil laba nin oo waxa weeyaan moodaan madusha mucaarad ku yihiin oo ka soo horjeedaan madusha wuxuu calaamad saaray boqorka labada daamood daan ma wixii inaad tiin akosoo example soo qaataan ceeb iyo waxaas in reer weyn baatiin dhageysta reer weyn baatiin inaad wax aan jirin soo qaataan wax saxiixina ku jira ma boqorka labada daamood waa daanta bari iyo daanta galbeed Soomaali oo midaysan ninkan boqor u yahay dhageysta ima reer waxa weeyaan nigani wuxuu ku fakarayaa inuu Soomaali boqor u noqdo waana u yahay caawa loo calaamad saaray waxa loo calaamad saaray boqorka waxa weeyaan Soomaaliyeed gabi ahaan walaa hawiye walaa dir ila dhamayo hadalka dhamayo ninka walaa hawiye walaa dir walaa daarood boqor u yahay asaga u taliya adiga sicil labanna iyo adiga maxamed cali ah maxaad ku diidantiin in hawiye iyo dir hoos yimaadaan nin daarooda oo ogaadeena waxa ku diidan labadoodu waa su'aal meesha ka ma kaaga jawaba hadda suga halka dhamaysto su'aal meesha la wey waxaad ku diidantiin wax lagu sheegaa wax garataa horta boqorka labada daanood gabar buuba ka soo qaatay Soomaali xilkaas leo mood galdenader marka hore gabar waraan dhamaysto suga inaaro horta niyow labadii nin horta labadii nin waxa idin nolol muuqataa ardanahay daarood inuu mucaarad meel waayay macnaha rag meel gaari waayay ninkii meel gaadhayna taageeri waayay gibigiinima waxana macnaha dee asal madoorsha tilin horta asal madoorsha waxna ma sameeysan waxa weeyaan mawase laga waliga maqshay laga waxna shukaasan maysan waxa weeyaan ragii wax fuulayay ee korayayna waxa weeyaan lama rabtaan marka meerayaalow dadka ka fadhiista waa khaldantiin madusha ninka la neera ah ee hawiyaha rabayno dhageysta oo soo kuf intaas ku soo kufinaya ninka la neera ah hawiye iyo dir u talanaysa inuu u taliya rabo u talanaya dir boqorka u ah taageera asaga nin daarooda ku xiga intaada waxa weeyaan meelka ay lahayn asaga ku xiga oo nin daarood Ismaaciila ninkaas ku xiga taageer sida caadiga muudigal marka wada raale hal mar waxaan rabaa inaan tusaaleeyo Soomaalidu waxay tiraahdaa ceelkeedii gabtay ceel kala ma kalkaasho madusha cali oo siciid laba nin gabadha uu leeyahay xilkii ku wareejinayso maxay tahay bal arinta dul istaa doorasha dhacday waxa kuma qabtay suuqan ku sheegay doorasha caawa dhacday Soomaalidu waxay tiraahdaa labada daamood fiiri maxamed cali oo labada daamood lagu sheegayo waxa laga reebay kaliya ma taqaanaa bashiir labadaan waa taqaanaa wardaan ma labada daamood wini af Soomaaliga iyo mashtartoog af Soomaaliga ma yaqaan waan horasay hadalka nooga baxday ceeb weey mashtartoog af Soomaaliga ma yaqaanaan muudgal waa yahay yaa wardaan ma waa daam weey daam gal anaga hanoo fastina saa u naqaana ka hadlaynay okay soo dhawaada neewtays uu dhagala iyo naga turtays waa dhagool baa u malay waxa ma dada odaga waan daaro Soomaaliyeed dadkaaga inaad wadataan rabay dadkaaga lagama tagay ilaa horta hadaad maqasho wadaan ceelkeeda gabta ceel kala ma kalkaasho madusha waa nin absama kumada asagoo taagan baa lagu yiri aniga doorashadii absamaan qabanaya kumadan qabanaya hortaadana ku qabanaya ana soo dhisaya leeyahay dadkeed balkaas faacudis si toosana doorashadii looga wareey habeenkii sabtigan dhacaysa nin kumada difaaci waayay oo kumada ilaalsan waayay madaarood buu difaaci karaa ma qabiil kale ku duuli karaa horta inta been loo sheega ma inta kale loo gooyana ma inta waxaan jirin loo sheegan ma ceeb weey annagu marka waxaan had meesha u fadhinaa adinku waqtiga naga dhumin annagu doorashadii waxaan u taaganahay beelweynta daarood gudoomiyaha guddiga doorashadana waa fadhiyaa wixii ka iscayrsanayo iyo waxaan iscayrsanayn ayaga u taala laakiin arrintu way adag tahay arrin adag baa meel adag soo maanta taagan dadkan iyo dalkan in la badbaadiyaa la marayaa waxaan leenahay in daaroodka saan caqli ma ahane
intaa ka badan kuma daawan karnay inaan badbaadinaynu taagannahay waxaa la rabaa marka daarodow siciidoo guddoomiyihiina waad ahayd raggii odayaashaana noogu yeer arrintaana naga dhammaystir caawo intaasaan ku leeyahay kulliib soo dhawaada odayaasha kale qaatan walba fikirkiisa ha dhiibto maxaa cali oo arrintiinan doorashada cid faragelinaysa arrintiinan doorashada wata cid faragelinaysa male annagu hawlihiina idinkuma faragelinayno laakiin suldaanka ama boqorka labada daamood ni waa taageersannaha hayood mahadsantahay war ninkii siil taageeraya asaga u taala waxaas waa siil weey magacaas horta mogtahay MR waa nin iska maqnaayo gaarigu wado waa socday caawa waxa dhacay cali uma jooginba wallahi warka mar dambe horta ma duushaaba baxay iyo batrool waxay tageen qolkii edbiye warkaas si fiican u dhageyso markay qolkii edbiye tageen waxay dhaheen annagu waxaan wadanaa boqorkii daarood baan ahay waxaan rabaa inaan ku darsado boqorkii direed boraan xarfo oo jambalaysta ah baa wuxuu ku yidhi inaad tartanta maarata hayaa la tartamaysa qof diroo la tartamay ii keen waxaa lagu yidhi qof dira hadda joogo oo tartamayo waxaa annaga inoo fadhido inoo tartamayso gabadha leeyahay xidigta jarmalka baa inoo tartamayso ayadaana boqorkii direed ah haddii kaa guulaysatana ayadaa xilka kugu wareejinayso haddaa ka guulaysatana adaa xilka kugu wareejinaya labadiina kii guulaystaa labada boqor noqonayaan doorashaa dhacda bool baa la tuuray xidigtaa badaysa saaxiibkay batrool waa hambaliyey wuxuu yidhi abti boqortooyaad ka soo jeedaa maadaama labada dhinacba ka dhalatay xilkii waa ku hamriyeen caana halkaa ka kacday baa qolkaa loo yimi horta marka horeba magacii boqortooyadii daaroodan annaga majeerteenka ku ogay maanta la qaaday baa gabar lagula tartamay taasaa jariimo ku ah daarood ismaaciil taasaa ceeb inugu ah haddana hadda midda la soo qaaday baa ceeb inugu ah oo ah in way dubanta wax kaste boqorka labada daamood laba daan waa la yaqaan bijir laba daan qof walba uu garanaya marka nima yahow dadkan in la badbaadiyaa loo baahan yahay dadkan saa laguma sii daawan karo hore inoo wada soo dhawaada ninkii odaga aarka ciidad baa soo galay suugaadha aarka ciidad uga qaado markaasoo kale qolyaasay walaahiga waxay dhahaan hor aboodmani bay dhahaan hor aboodmani wara dhawaan salaamaya dhammaantiin ilmada reer aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaa weeye baryahan dadkii uniya waa la kala badiyey orodse ma aha inuu wuxuu isku dayey baraha bulshada waxaana waa bara bulshada mawduuc inuu keeno dad inuu xukumo ku uu ka dhashay iyo ku uusan ka dhalaninba inuu xukumo in uu Soomaali caynaanka u qabto nin isku day ninna wuxuu isku dayey kaa in adeerkay wax isku dayay lugaha inuu qabto waxyaabaha subxaanallah waxyaabaha la yaab kale meesha ka socda wey waxaan sheegayaa maxamed cali iyo laba nin iyo dhalinyarada kale waxba ma garanaysa waa dhalinyaro meesha saaran oo labadiina waxaan sheegaya ilmada real mawduuc waxaad keentaan aanu idinku taageero ama magac cusub ama wax keena laakiin nin meel uu nin idinka horreeyay had iyo jeer lugahan ku dhigi waxaas ceeb weey waxaas waa ceeb batrool baad ogtiin oo madaxweynihiinu yahay si sax lagu doorto la tarteeno labadiinaba idinka reeyay waxaad iska soo jarteen hadda madaxweyne daarood iyo waxbaan sameeyeen waa raggiina meesha ku hadhay nin la yiraahdo madusha waa mawduuc kala keensado boqorka labada daamood laba daan iyo laba daamood kala saar ma garatay boqorka labada daamood ama labada haamood ama labada dhoomood ama labada beeleed midka doonta dhe iyo isku caana shubay halkaas waxa weeye lagu doortay wuu yahay waa u ictiraafsanahay waa garab taagannahay mawduuc kala meydaan keenine waxaad dhahdeen asagii baad dhaheen maykaas waxba kama jiro lugahan ku dhageyna war shame on you my friend shame on you guys keena wax mawduuc oo idinku taageeray rag daarooda laandheeraha tiin wax kala keena laakiin xiniya ku dhagan iyo waxa weeye waxyaabo mid kale maxamed cali waxaad sheegtay nin la yiraahdo waxaad sheegtay nin baa doorashadiisii meel ka bixiyo qabanaya adiga hadda haddii lagu dhaho doorashadii MR baa la qabtay maxamed cali baana ku soo baxay wara ugaaska soo qabo maxaa cali ugaaska soo qabo ilaa hadalkay kaadi hadda haddii la dhaho Marixaan baa la doortay madaxweynihiisii waxa weeye wax la dhaho halkaas waxa weeye digirtii iyo ma garanaysaa cid kasta ay biniinta tuujiso halkaa waxa weeye ma garanaysaa wuu guuleystaa lagu dhaho waan ognahay meesha Marixaanaad ka taagan tahay meeshaad fadhido waa ognahay si laba nin oday oo reerkaas oo villa majeerteen iyo ahaan jiray hadda waa villa horgal buu soo furtaa maalin habeen ninkan waxa maqariyo waliba wuu is cadeeyay baan hor wuxuu yiri wallahi billah halkaas iska dhiibayaa waa la joogay aad baan u qoslay soo ka dhabeeyay ma garatay ilaa real marka anagu idin dhihi ma idin gafi mahayo ma garanaysaa marxuumiin idin dhihi mahayo rag daarood Ismaaciil oo bal ninka gabadha xidigta abtiga waxay la tartamay boqorka ay kaga guuleysatay bal asna noo sheeg bal qaab ukaadi
anuu marxuumiin idin dhihi maayo idiin gefmay rag daarood ismaaciil oo laandheeraha tihiin oo weliba laba qabiil oo laandheeraha ka soo jeedo oo akhyaara tihiin ma garatay laakiin bilaahi calaykum waxaad keentaan wax mawduuc oo laydinkaga daydo waxaad keentaan wax dadka shacabku ku madadaasho laakiin midkii meel fuulo waa ka daba fuuli xaar baan ku saydi afxumaan la daba socon nin shisheeyahana waa leefleefi waxaan ka dhigi gob dhashay shame on you my friend waxaasu waa wax sharaftiina meel oga dhacaya wax qabiil okay isug waa kuma ninka shisheeyaha ninka shisheeyaha oo hadda uu ninkaas u durxulaya uu leeyahay doorashadii kuumada meel laga mariyo la qabanaya ama uu waxa weeye ma garanaysaa doorashada rood baan qabsanay intay dhahan ay daaqadiisa soo fulaan ama soo qabtaan ina cala soo wey ninka wey maalinka ina cala soo wey okay halka istaaji ninka hadalka qaadanay uga sukaadi marka halka intaada dhaafin ninkaas odinka ku hayay waa nin ogaadeen oo amuudaana oo sacada hormu shisheeye noqday okay su'aasha toos baan uga jawaabaya su'aasha ina cala sowna waan u sheegay adigana waa kuu sheegaya cid kastoo ogaadeena ama daaroodana u sheegaya waxaa jira horta sacad iyo ogaadeen waxaa ka dhexeeya leelkasiya xawaadle dhegeyso waxaa leelkasiya xawaadle ka dhexeeya wax harti abgaali warsangari ka dhexeeya wax noocaasa naga dhexeeya laakiin nagama dhex arka ciideedo inaadeer nimanka ka fogow daahir cali waa shakhsi weeye barta damay aan kala xishoonno inaadeer ha ka dhigin nimankaas wax fog nimankaas waa niman maqaabula inaadeer waa niman aniga ila dhashay weeye iskugu jawaabna ma ahayn nimankii ila dhashay baad wax shisheeyaa ka dhigaysaa inaadeer daahir cali daahir ay dhegeysta daarodow daahir cali waa qof shakhsiya ii kaadi dee inaadeer waa qalad waxaad ku hadlayso annagoo fadhfadhinaad rabtaa waxaa weye dad tolkana inaad shisheeye ka dhigto wax aysan la sinayn aad la sinto inaad daahir cali anaa hadda idinla daarooda waa qof shakhsi ah birtaad ka waraabin kartaan meeshaad aragtaanba isagaa isku filan waxa weye cidna uma joojinayo keligiiba adeer afkiisa isku difaaci karaa laakiin beeshiisa waa niman maqaabula adeer anay ila dhasheen marka ogaadeen laga soo tago anay ila dhasheen oo maqaabula oo makaahila anay ila dhasheeniyo ha laga fogaado inaad iguna ixtiraama waxaanu ka sheekaynayana aanu ma garanayno waa kugu ixtiraamayna anagu dhid daaro Ismaaciil ha tahay way marka sultan hadalkiisa dhaafin hadalkani waa hada maxaa daahir laga rabaa haduu nin isuga inaad mudi gala ilma yaalo dhageysto wax yar dhageysta ilma yaalo in aska hadalna ma ana hadalada qabanayo okay ninkan oo maxamed sugeer ah oo baahala ah wuxuu yiri waa shisheeye daahir halala safto ma doosha okay adigu nin waxa tahay makaahil ah saad sheegtay hadalka maxaa ka oranaysaa ilaa anaku meel aan raacnaan garan laana nin adna waxaad leedahay ninkaana dhow kanna wuxuu leeyahay ninkaana shisheeyo ninkaana dhow waa laba nin ogaadeenaysa istuu ku ninkan sacad waa ogaadeen buu ku yiri wuu caday ninkan ha kugu dhacay ninkan kalena wuxuu taagan yahay ninkan shisheeyaha ah oo reerka soo dhex galay waa ninna waa baahale ninna waa maqaabul way sultan hadalkii baan raacinaa sultan caday su'aasha lagu weydiiyey inaad dhegeysta waaye waan cadaynaya ugaas dhegeyso dagaalkaas waa dagaal muqaabul ay ku soo qaadeen iikaadi ugaas waniyo horta wax in la isku qaldo ilmaad reyaalow ma aha waxa weeye dadka inay wax u kala caddahay baa fiican annagu ma aanan dhihniyo sayid maxamed cabdulla xasan baa wuxuu lahaa sacad waa ina ogaadeen haddii loo abtiriyaa midda kaleeto shalayto 2018 bay ahayd markay ani suldaamadayda iyo suldaamadoodu inta isku yimaadeen dee youtube-kay ku jirtaa taariikhdu inaadeer mid maanta la qorayo ama hadda aan inagu wax ka bedeli karra ma aha waa mid qoran weeye waxaan idin idhi aniga oo waxa weeye wiil makaahiil ah nimankaasu xataa ogaadeenka kale waa iga xigaan waa niman maqaabula laakiin daahir calasow waa qof shakhsi oo isaga oo waxa weeyaan ila dhashay buu haddana shakhsi ka yahay ummadaas iyo social mediahana waa uu joogaa wixii la doonaa ummadda la isdhihi karaa annagoo labada daamood kala degan baan haddana dad wada dhashay oo isku dhiiganahay qof ku xadgudbi kara maxamed suweerkaad sheegaysid iyo walaa cid kaleeto iyo walaa daarood iyo caradin kama yeelayaniyo dadkaas wadadaan wada dhalnay iiga wada dhow ummadda oo dhan dhiigaygii ah